magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia 48 saacadood ee la soo dhaafay waxa booqashooyin waqti kooban u dhaxeeyay ku yimi wasiirada amuuraha dibadda ee dalalka Ruushka iyo Mareykanka Sergey Lavrov iyo Rex Tillerson waxa sidoo kale isla waqtigaasi booqday magaalada Addis Ababa wasiirka amuuraha dibadda ee waddankaasi Imaaraadka Carabta wasiirka amuuraha dibadda waddanka Ethiopia ayaa ugu horeyn sheegay in xogayaha amuuraha dibadda Mareykanka ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Ethiopia iyo sidoo kale arrimaha ammaanka ee koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya. Discussed extensive issues. Bilaterally, we discussed about the issue of South Sudan and Somalia. wasiirka amuuraha dibadda waddanka Mareykanka Rex Tillerson waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta Ethiopia ay ka wada hadleen xaaladda Ethiopia xilligan ay marayso kadib iscasilaadii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn waxa xogayaha amuuraha dibadda uu sheegay in dawladda Ethiopia uu kala hadlay in xaalka degdega ah ee lagu soo rogo waddankaasi markii labaad aanay meel kaga dhicin xuquuqda shacabka. Another state of emergency because it does put restrictions on fundamental rights like assembly and expression. Mr. Tillerson waxa uu sheegay mas'uuliyiinta waddanka Ethiopia inuu dareensiiyay in loo baahan yahay ciidamada ammaanku si asluub leh inay ula dhaqmaan dadka shacabka ah marka ay ka jawaabayaan xaaladaha amniga. Security forces remain disciplined in maintaining law and order, preventing violence. They have a very difficult challenge on their hand. waxa kale oo bogaadiyay xukuumadda Ethiopia siideynta kumanaan maxaabiis ah oo dal laga qaaday ka hor intii aanu iscasilin ra'iisul wasaarihii hore isagoo sheegay Ethiopia in looga baahan yahay inay sii wado ku dhaqanka dimuqraadiyadda isla markaasina ay ogolaato xorriyadda hadalka. The release of thousands of prisoners, including journalists and political leaders, and we encourage additional concrete measures to allow greater political freedom of expression. maadaama Ethiopia iyo Mareykanka ay ka dhaxayso cilaaqaad dheer oo ku siman muddo 100 sanadood ah. More than 100-year diplomatic relationship between Ethiopia and the United States. xogayaha amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka waxa sidoo kale uu sheegay in Ethiopia ay saameyn ku leedahay nabadgelyada Soomaaliya iyo Djibouti amnigaas oo suura gelinaya sugnaanshaha amniga badda cas marinkaas oo dhaqaalaha dunida lafdhabar weyn u ah. Ethiopia's influence in supporting the security of Somalia and Djibouti are particularly important at this time to keep global commerce routes open. These routes through the Red Sea affect billions. sidoo kale wasiirka amuuraha dibadda waddanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa isna gaaray xalay magaalada Addis Ababa halkaas oo kula kulmay mas'uuliyiinta sare ee waddanka Ethiopia waxa kale oo la kulmay saraakiisha midowga Afrika ee fadhigood yahay magaalada Addis Ababa. wasiirka amuuraha dibadda waddanka Imaaraadka Carabta ayaa isna booqday magaalada Addis Ababa waxaana ay ka wada hadleen cilaaqaadka labada waddan iyo arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga. xogayaha amuuraha dibadda waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu gaaray maanta magaalada Djibouti ee caasimadda waddanka Djibouti. xogayaha Tillerson ayaa markii uu gaaray magaalada Djibouti waxa halkaas ku soo dhaweeyay dhigiisa waddanka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxaana Djibouti ay noqonaysaa waddankii labaad ee xogayaha amuuraha dibadda Rex Tillerson uu safarkiisa ku marayo kuwaas oo kala ah wadamada Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad iyo Nigeria. quwadaha caalamka ee Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha quwadaha caalamka ee Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo xulafadooda ayaa u muuqday inay ku loolamayaan saameyntooda geeska Afrika.